xalay saqbarkii ayay la baxeen askar reer Somaliland ah isla markaana ay xukuumaddu soo dirtay Sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil Haaruun kadibna xabsiga ayaa loo taxaabay shiiqa ayaa ka hadlayay dhibaatada ay Israa'iil ku haydo Somaliland gudaheeda waqtigaasi uu masaajidka muxaadarada ku dhameeyay isla markaana dadku ay kala dareereen asaguna uu masaajidka ku haray 5 qof camalna ay masaajidka iskula hareen isla markaana uu islahay masaajidka ka bax ayaa askar 15 qof ah oo xukuumaddu soo dirtay isla markaana ka amar qaata Abdirahmaan Cirro ugu soo galeen masaajidka gudihiisa Sheekh Mustafa isla markaana waa la taxaabay oo hadeertaan xabsiga ayuu liinta ku cabayaa weyn ee ku yaala Hargeysa haddaba haddii maalin aad jeclaatay Sheekh Mustafa ka wacdigiisu uu ka farxiyay isla markaana dadka taageera ee caalimkan Soomaaliyeed jecel aad ka mid tahay muuqaalkan sheer garay isla markaana like taabo maadaama shiiqani uu yahay caalim Soomaaliyeed waxa la aaminsan yahay dadka xalay dhibaateeyay isla markaana masaajidka ugu soo galay inay Yuhuuddu soo adeegsatay isla markaana amarkani uu ka yimid Israa'iil iyo Netanyahu haddaba Sheekh Mustafa hadeertaan xabsigiisa gudaha Somaliland aad ayaa looga walaacsan yahay xukuumadduna waxa ay ku fakaraysaa inay shiiqa sii haydo iyo inay la sii daayo maadaama xarigiisu uu hadeertaan si toos ah banaanka u imaanin Sheekh Mustafa waa caalim Soomaaliyeed isla markaana diinta Islaamka si daacad ah u faafiya isla markaana jecel in ummadda Soomaaliyeed ay horumar gaarto mar walba waxa uu dadka ku wacdiyaa wanaag iyo sidoo kale ixtiraam ardadii ayaa sidoo kale fasahaday gabdhaha halkan idinkaga muuqda waa gabdha Israa'iil ay ka bixido lacagta iskuulka isla markaana Israa'iil aaminsan kuwa Netanyahu nambarna diyaarunay maadaama Netanyahu aan la ixtiraamka la joognay khilaaf iyo sidoo kale iska hor imaad ayaa ka taagan hadeertaan dhaxbartamaha Somaliland waxaana la leeyahay Yuhuudda miyaan raacnaa oo diinta Islaamka miyaan ka tagnaa mise diinta ayaan ku xirnaanaa oo Sheekh Mustafa dhankiisa ayaan u badanaa labo ayay u kala jabtay xukuumaddu waxa ayna qaarkood taageereen ninkii hore ee ka arrimi jiray Muuse Biixi Cabdi kaasi uu ka soo horjeestay arrinta Yuhuuddu ay ku aqoonsatay Somaliland halka qaarkoodna inta badan ay wax magaratada ah ay taageersan yihiin Abdirahmaan Cirro oo ah nin diinta Islaamka xagga iska dhigay Yuhuudna soo dhaweystay Sheekh Mustafa xalay waxa uu ka hadlayay markii la qabtay kaliya waxa ay ahaayeen Israa'iil waxa uu nadahayay gudaha Somaliland haddii Israa'iil ay soo gasho ka samaysato saldhig military awoodda anagu awoodi karnaa maxay tahay Sheekh Mustafa waraysigii xalay ama sidoo kale soo jeedintiisa uu masaajidka ka soo jeedinayay wali lama soo faafin balse kaliya waxa ay ku saabsanaayeen Israa'iil aan iska dhicino aan ka soo horjeesano isla markaana yaana yeelin waxa ay gudaha Israa'iil ay gudaha Somaliland Israa'iil ay ku wado haddaba Sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil Haaruun hadeertaan gudaha xabsiga ayuu ku jiraa waxaana la leeyahay war maxaan sameeynaa masiideena maadaama indhaha caalamka ama sidoo kale Somaliland oo dhan ay soo fiirinayaan ma Somaliland ayaa sii jiri karta Sheekh Mustafa oo xiran xabsina ku jirta ayaa dadku shaqaysan karaan haddaba haddii aad joogto gudaha Somaliland ma Abdirahmaan Cirro ayaa taageersan tahay oo ah madaxweynihii raacay Yuhuudda balse Sheekh Mustafa ayaa taageersan tahay aragtida adu waa inoo muhiimka qaybta commentiga muuqaalkana like dheh balayaan inoo dhaweynayna soo jiidan ninka caruurta ku faraxumaynaya Jazaa'irka iyo Mareykan u dhawaa madaxda miya adiga ku naxariisanayo wanaag ku galayo muslim kale kaaga hiilinayo ku hagaajinaya ayuha alahibba wali dagaalada kuma jiro laakiin talaabooyinkooda siday u socdaan haday u socdaan dagaal ayna shaqo ku lahayn baynu galaynaa halaan waxba aynan u haysan shaqana ku lahayn iskana difaaci karaynin ayaynu u sii soconaa inaynu galo waxa habboon madaxdeena iyo mijaheena iyo salaadiinteena iyo cuqaasheena iyo qabaa'ilkeena bayna si fiican u fakaraan sida fiican ay u fakaraan waxa weeyaan hadda xortii wadankani haddu xoriyay hadduu qofku wuxuu doono odhan kara hadduu halkuu doono mari kara halkuu meeshuu doono seexan kara hadduu walilaahi alxamdi nabad ku haysta waad nabad waayi waa madaxdoodii kuwa meel walba lagu laynaya maaduu kaa jecel hadduu kula yimaado hadduu kula soo dego maaduu kaa jecel
idan haddaad xor tahay ee gumaysi ha doonan waddankani hadduu xor yahay bale waxaan odhan karaa meeshan aynu degannahay caalamka ilaahay abuuree maanta dunida ka jira waa dhulka ugu xorriyad badan haddii xorriyadun qiima ay leedahay laakiin warkaalayana gumaystayanan inagu odhanay soomaalidu waxay sheegaan nin reer miyiyabaa berbere tegey bay yidhaahdaan markaasoo arkay laba xamaaloo isdilaya markaasuu yidhi war nimankani maxay isku dilayaan laba la kala qaban kari laayay maxay isku dilayaan waa xamaalistay isku haystaan buu yidhi oo iminka nimankaasi ma aniga hallay raray isku dilayaan buu yidhi yacni wuxuu ninkaasi xor buu ahaa meel aan cid madiidin loo noqon buu ka yimi baadiyo waa xor waa meel aanu ninku dhanku doono u dhaqaaqo meesha afka taaga cidna aanu ka cabsanaan ilaahay ahayn subxaana wa tacaala dadka baadiya ku noole wuxuu u arkay ninkani dushayda ha la raro miyuu u dagaalamsayey buu yidhi u dagaalamaya war inan sidii xamaalkaa noqonin hana la raro u dagaalamaya haddaad xor tahay ee xorriyaddaada ha iska tuurin haddaad xor tahay ee xorriyaddiina ha tuurin ma baryo tamayaan oroma mi hargeysana oroma kamiyo de kuma baryay Cabdiraxmaano tacabkii maalka waxaan ku gashadayna waxay ahay inaan waxayga ka helo inaan nin ila dareeno in adeerkiyo dibadda taagnaa inaan idhaahdo warana kula ila dareen baa 36 sano saamiga ka maqana aynu iskaashano laakiin ninku yiri sinaan mayno adnadii tirniintiisa lama qaato waxyaalaha iyo sidaa in kulli bulshada reer Soomaaliya waxay marxaatiye margayga tahay sanadii 6 bilood bay Dr. Cabdilaahi Maxamed Cabdilaahi Cishre dawladiisu dhisantay inaan dawladda sanadii 6 bilood meel aan ka hadlayo aan lay arag meel wardiin baan ku dirsanay hadaan diinka nagu hogaamin karin culimadeeda nagu hogaaminaysa iskaga soo bax meesha laakiin waxaan ka soo horjeedaa yuhuuda aan balanta lahayn ee ilaahay subxaanahu wa tacaala yuhuudiya nasaari raaliin ka noqon maysaan ilaa waxay rabaan aad u samaysaan Soomaaliya cadawga laga dhigay habeenii maalin Soomaaliya lagu xoqanayna waa tiin shilay kaambiinka ka soo qaadanayni ana aad runta idin sheegaya waa wasiiro wada jaahiliina wasiiradaadu waa wasiiraan aqoon lahayn waa wasiiraan ixtiraam lahayn sidaas albaabku idin ku xunaanaya Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cishre waan ku tacab qas kuwan Netanyahu nambarna diyaarunay maadaama Netanyahu aan la ictiraafka la joognay إسرائيل بندوننا إنا برنا تاريخ ذا ويا منهج كتاريخ ذا إسرائيل ملك جمشرو لكن إنكا محل هذا ترمل كي إنجليز كيو تاريخه هذي ولا ألوان وضح فتناي هذا نشقلة تقولنا إنه ما أنفعيان لنجلس هاي وحالي أنا وسقر منهجك وريا منهجك هيستوريكو بواحد كاستولا برتاوي هيستوري وتاريخ تاو فايدة كل أنا هيستوريكي وحسب معها منهج كان أرضي ده هدي نقطة سنة كان هلا جبدله منهج واحد بدن هلا جبدله واحد